نبي الله موسى وحسين داي وشي مركي سيدا لو سي دايبا وابا ابيسو انا عادي اهين انها با لو دمين كارين ميش دن با لو كلا عرب قصري فرعون با لو كلا ordi ragii golaha fadhiyay madaxweynta iyo ciidankii waa la kala yaac fircoon argagax baa ku dhacay warbaalkii qabta in la isku hareereeyo fircoon laga ilaaliyo ayay tag ayad buu nabi allah muuse madax ka soo qabtay waa soo istaajiyay waa ushiisiiba salaamu calaykum saaxiibayaal soo dhawaada meel walba dunida caleed ka joogtaan muuqaalkan kii ka horeeyay hadii aad daawatay waxaan uga soo hadalnay qisada nabi allah muuse alayhi salaam iyo sidii uu u dhashay iyo qaabkii mucjisada lahaa ee ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kaga badbaadiyay ninkii shaydaanka ay weynaa ee la oranayay fircoon hadaba saaxiibayaal qisadaasi waxa inoo mareysay in nabi allah muuse uu ka cararay halkii uu ku noolaa oo ahayd masar gurigii fircoon kadib markii uu suuqa ku dilay nin qibtiyiinta ahaa ama nin ka soo jeeday qoyskii fircoon halkaasi ayuu ka cararay nabi allah muuse alayhi salaam waana kii qabtay halka iyo madyan meesha la yiraahdo halkaasi markii uu tagana waa kii ku arkay laba gabdhood oo ceelka agtiisa taagan oo xoolahoodii horaya aan weli ambiyasiinin kadibna waxa uu weydiiyay sidaan ku soo marnaba qisadii hore maxaa idin ku dhacay oo aadan xoolaha aadan u waraabinaynin kadibna waxay ku jawaabeen anagu ragga ma dhaxgalno oo waxa weeye dadkan waraabayo ceelka biyaha ka dhaansanayo xoolaha waraabsanayo ragga ah ma dhaxgalayna anagu maadaama aan dumar nahay aabaheena waa waayeel nin dhalinyara oo waxa weeye wax noo waraabinayaana nalama socdo sidaas daraadeed baan sugaynaa intii dadku ay ka rawaxaan oo ceelka ay ka dhamaadaan kadib baan anaguna waraabayna nabi allah muuse alayhi salaam waxa uu waraabiyay xoolihii kadibna wuxuu iska hoos fadhiistay geedkii harka ahaa kadibna ilaahay buu weydiistay in ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa la wixii khayr ah oo muuse uu qadaray inuu muuse maanta u baahan yahay hadaba saaxiibayaal waxa inoo joogtay nabi allah muuse inuu la kulmay nabi allah shucayb kadib markii gabdhihii ay ceelka ka rawaxeen oo nabi allah shucayb ay u tageen oo ay ku yiraahdeen aabbe maanta nin wanaagsan ayaa xoolihii noo soo waraabiyay kadibna mid kamid ah gabdhihii ayaa u soo fariin diray wuxuu ku yiri ordo ninkii xoolaha idin waraabiyay u tag oo ii keen si aan u abaalmariyo si aan ugu abaalgudo ficilkii wanaagsanaa oo idin sameeyay daraadeed deedna sida ilaahay quraankiisa kaga warramay gabdhihii mid kamid ah oo si xishood la u soconaysa ayaa waxay u timid nabi allah muuse oo geedkii hooska iska hoos fadhiyo oo faraska alla sugayo xaaladuna ay ku adag tahay oo baahi ay hayso hadaba saaxiibayaal fajaa'atu ihdaahuma tamshi ala istixyaa'in waa ka ilaahay ku oranayo way timid gabdhihii mid kamid ah ayadoo si xishood leh u soconaysa dumarku waxay ku wacan yihiin in xishoodaan hadaba nabi allah muuse sidaa ayaa ku raacay gabadhii asagoo hor soconayo na ay u ishaaraysa ayadu halka uu gurigii ka jiro markii uu halkaas nabi allah shucayb ugu tagana nabi allah shucayb warbixin dheer baa dhaxmartay wuxuu kaga warramay halkii uu ka yimiday inuu fircoon ka soo cararay halka masarka ka soo cararay ninna uu soo dilay kadibna nabi allah shucayb waxa uu ku yiri waxba ka walwalin halkan fircoon kama taliyo qoladii daalimiinta ahana waad ka soo badbaaday hadaba saaxiib gabdhihii nabi allah shucayb mid kamid ah ayaa waxay tiri aabe ninkani waa nin wanaagsan waxaan rabnaa inaad shaqaale nooga dhigto waa nin xoog badan waana nin aamina oo amaanada aan khiyaanaynin sida daraadeed baan rabnaa inaad ninkan shaqaale nooga dhigto maadaama aanan haysanin wiil xoolaha noo waraabiyo xoolahana raaca sidaa ayaa nabi allah shucayb alayhi salaam oo ku yiri nabi muuse waxaan doonayaa inaad 10 sano ama 8 sano aad xoolaha ii raacdo aniguna gabdhayga mid kamid ah aan ku guuriyo sidaa ayaana uu ku aqbalay nabi allah muuse inuu 8 sano ama 10 sano uu xoolaha raaco sidaana uu ku guursado gabdhihii nabi shucayb mid kamid ah hadaba saaxiibayaal inta wixii ka dambeeyay nabi allah muuse waxa uu dhameystiray 10 sano oo kula heshiiyay nabi shucayb markii uu dhameystana waxa uu hiloobay reerkiisii iyo tolkiisii waa ay qofka aan u hiloobaynin tolkiisii kadib markii uu 10 sano ka maqnaa saaxiibayaal nabi shucayb ayaa uu ku yiri waan guuraya oo waan baxaya waxaan aadaya halka ay ehelkaygi deedna waxay qorayaan mufassiriintu inuu nabi shucayb xoolo badan in uu siiyay oo si fiican asaga iyo gabadhii uu dhalaba u sagootiyay nabi allah muuse halkaasi ayaa uu ka dhaqaaqay soo xoolo badan wata xaasna wata oo xaaskiisu ay la socoto bartaasi ayaa uu ka dhaqaaqay waxaana uu dhaqaaqay dhinaca iyo masar markii uu jidka marayo oo cabaar uu socdo ayaa nabi allah muuse jihadii ayaa ka luntay oo waa uu wareeray meel uu u socdana uu garan waayay kadibna xilli habeen ayaa la gaaray meel uu ka yimid iyo meel u socdana uu garan waayay markii uu wareeray ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala meel wax uga bidhaamiyay wuxuu arkay meel buurta la yiraahdo tuur oo iftiin ka soo baxayo ayaa uu arkay nabi allah muuse kadibna reerkiisii ayaa wuxuu ku yiri war halkan jooga waan wareersanaa meel aan u socnana garan mayne halkan jooga dabkaas meesha ka ifayo ayaan aadayaa waxa laga yaabaa inaan warbixin ka soo helo halka meeshii aan u socnaa ay naga jirto iyo inaan qaldannahay iyo inaan saxannahay bal inaan warbixin ka soo helay in kale dabka ayaan aadayaa halkan jooga sidoo kale waxa laga yaabaa inaan haddaan xitaa warbixin ka waayo dib aanu shidanno inaanu ka soo helno ayaa laga yaabaa marka halkan sii jooga meesha waxa laga yaabaa in balaayo ka jirto sida daraadeed buu leeyahay reerkan halkan jooga anaa waxaan ifaya ka wardoonaye bal adinku halkiinan sii jooga oo kuma hago dhan hal dambi laguma shub inaad mar qura adigoo iyo reerkii oo wada socotaan aad waxadan garanayn waxay yihiin aad ka kor daadato ma wacna aadna uma fiicna sida daraadeed baa nabi muuse uu yiri reerkiisii ku yiri halkan sii jooga hadaba saaxiibayaal nabi allah muuse waa u dhaqaaqay waxaana u aaday halkii uu dabku ka ifayay meeshan dabka ka ifayahay waa buurta loo yaqaan tuur waana buur muqaddas ah si ilaahay
kaga warramay quraankiisa nabiyullaahi muusa markii uu soo dhaqaaqay oo bartii yimiday maashan geed weyn ayaaba iftiimaya oo holac ayaaba ka socda geedkan markaad meel fog joogto waxaad u malaysaa inuu dab yahay laakiin markaad u soo dhawaato geedkani asagoo idilba uu ifayaho si aan caadi ahayn ayaa nuurka u saaraya geedkan markii halkaas uu soo galay ayaa nabiyullaahi muusa loo dhawaaqay muusow waa loo dhawaaqay dabadeedna waxba ma arka nabiyullaahi muusa nuurka waxaan ahayn ma arko halkan uu fiiriyaa waa buur dhinacan uu fiiriyaa geedkaas birqayo wax kale uu dareemayo uu arkayo ma jirto haddana magaciisii ayaa lagu dhawaaqaya nabiyullaahi muusa xaaladdu way ku adkaatay waxaana uu dareemay xaalad aan caadi ahayn dabadeetana ilaahay baa u dhawaaqay waxaa lagu yidhi waadi muqadasa baad ku sugan tahay kabahaaga siib waxaa kula hadlayana waa ilaahay innii ana rabbuka fakhlacna calayka innaka bilwaadi almuqadasi tuwa kabaha siib baa la yidhi waadi muqadasa ayaad ku sugan tahay ilaahay baana la hadlo wuxuu ku yidhi innii ana allahu alcasiizu alxakiim ilaahay ku abuuray adiga ayaan ah nabiyullaahi muusa waa basharkii ugu horreeyey bani aadama ee ilaahay bilaa waasid uu la hadlo yacni qof u turjumaya ama qof u dhexeeya asagii ilaahay ma uusan jirin markan ilaahay baa si toosa ula hadlay wakallama allahu muusa takliima haddaba saaxiibayaal intaa wixii ka dambeeyey ilaahay markii uu isu sheegay in qofka la hadlayaa inuu yahay ilaahay halkanna uu ku sugan yahana ay tahay meel muqadasa oo tuwa ah ayaa markii ugu horreysay ayaa nabiyullaahi muusa uu hadlay markan intii ka horreysay ilaahay baa hadlayey ilaahay ayaan isu sheegayey inuu ilaahay yahay kii asaga abuuray qofka la hadlayaana uu asaga yahay halkanna waxaa loogu sheegay nabiyullaahi muusa in ilaahay uu doortay oo rasuul uu ka dhigay wa ana akhtartuka fastamic limaa yuuxa anaa ku doortay buu ilaahay rasuul baana kaa dhigayaa waxa lagu waxyoonayana muuse u dhegeyso dabadeetana ilaahay wuxuu yidhi wamaa tilka biyamiinika yaa muusa muusa midigtaada maxaa ku jira ambiyada ilaahay markii uu ilaahay ka dhiga rasuul oo ilaahay uu doorto oo fariinsidiisa uu asagu ilaahay ka dhigo bini aadamku si ay u rumeeyaan wuxuu u baahan yahay nabigani mucjiso waxyaaba la raaciyo in wax la raaciyo mucjisaa oo basharkii bini aadamku ay ku rumaynayaan sababtoo ah adoo bini aadan hadaad suuqa la soo istaagto anuu nabi baan ahay tay dadku kaama qaadanayaan waa kii ninkii shaydaanka ahay musaylim alkadaab waxyaabihii aad garanaysaane taafihay liitay la soo istaagay yiri aniguba rasuul baan ahay sidii maxamed ba rasuulka u ahaa mucjisaadkayguna waa kana waa kii ka hadli jiray rakaha iyo baalkan aan raha u naqaano hadal ku saabsan oo quraan uu malaynayo waa kii keenay carabo idilina waa tii ay ku qosasho marka nabigu wuxuu u baahan yahay waxyaaba mucjizaada oo bini aadankan asaga la nooli aanay samay karin tiiba ilaahay subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi muusa xilligan uu siinaya maadaama uu rasuul ka dhigay deedna ilaahay wuxuu yidhi wamaa tilka biyamiinika yaa muusa muusow waxa gacantaada ku sugani maxay yihiin deedna muusa wuxuu yidhi hiya casaaya atawakka'u calayha wa ahushu biha calaa ghanami waliya fiiha ma'aaribu ukhra ilaahayo waa u sheegdii waa u shay caadigaheed oo aan watay markaan soconayo ayaan cuskadaa wa ahushu biha calaa ghanami arigaygana waan ugu geeda laashaa waliya fiiha ma'aarib ukhra dana kalena waa ii qabataa oo noqotaya in dadka laysaga dhiciyo in bahalaha halaqa iyo lagu dilo wax badan bay ushana ii qabataa sheekooyin badan wax badan bay ushana ii tartaa deedna ilaahay wuxuu yidhi alqiha yaa muusa muusow ushan tuur baa la yidhi fa alqaaha fa idaa hiya xayatun tasxa ushii haddii uu tuuro nabiyullaahi muusa waaba abaysa ordaysaba meeshan abaysa sidaa u yaacayso oo aan indhahaba loo dhammayn karin ee caadi ahayn ordayso ayaa ay noqotay nabiyullaahi muusa markii uu arkay ushii asaga uu watay oo mas ah oo yaacayso oo cararaysa oo sidaa afku kala qaadayso uu taagnaan waayey meeshii deedna cagta ayuu wax ka dayey maqla jirta hebel cagtiisa ayuu maalay nabiyullaahi muusa cagta ayuu wax ka dayey waana orday waa kan ilaahay odhanaya falamaa ra'aaha tahtazu kaannahaa jaannun wallaa mudbiran walam yucaq markuu arkay iyadoo ushii mas ah oo abayso aan caadi ahayn oo saa u galgalanaysa ayuu nabiyullaahi muusa sii jeestay u cararay dibna xitaa sooma fiir markaasaa ilaahay u dhawaaqay wuxuu ku yidhi aqbil walaa takhaf innaka min alaaminiin muusow waxbaa cararin wuxuu waa ushaadi keliya annagaa sidan ka dhignay annagaa mucjise ka dhignay annagaan ugu talagalnay inay sidan noqoto soo noqo oo waxa weeye qabo hana cabsanin baa layidhi dadka aaminiinta ayaadna ku jirtaa deedna uu soo baxay ushii ayaa oo soo cabsanaya ayuu madaxa ka qaba bal aduu mas meeshan taagan madaxa ma ka qaban karaysa nabiyullaahi muusa ilaahay baa la hadlo wuxuu yidhi madaxa qabo madaxii buu saa u qabtay deedna waaba ushiisii caadiga ayay soo noqotay uu sii daayaa waa abaysa meeshan ordaysa madaxuu soo qabtaa waa ushiisii caadiga waxaa la yidhi tani waa calaamadii koowaad oo aad haysat mid labaad ayaa ilaahay siiyey oo gacantiisa waxaa la amray inuu jeebka geliyo wa adkhil yadaka fii jaybika takhruj baydaa'a min gayri suu'in maxaa lagu yidhi mid labaad ayaanu ku siinaynaa gacantaada ayaad waxaad gelinaysaa jeebkaaga gacanta ayaad sidaa jeebka u gelinaysaa deedna waxaad soo saaraysaa ayadoo cad oo caddiin aan caadi ahayn cad haddana aan jiranayn oo baras iyo waxaas gacan baras ku dhacay aanan ahayn gacantii oo caafimaad qabto laakiin jirka intiisa kale aan la mid ahayn ayaa soo baxayso nabiyullaahi muusa waxaa la sheegaa midabkiisu inuu ahaa midabka maariinka ee gaduud xigeenka inuu ahaa ayaa la sheegaa haddana gacan aan caadi ahayn ee caddaan oo white ah ayaa ilaahay subxaana watacaala u yeelay iyadoo mucjiso u ah bini aadankii loo diray haddaba saaxiibayaal sidaa ayuu gacantii jeebka ku geliyey markii uu soo bixiyena gacantii iyadoo cad ayaa uu soo bixiyey jeebka ku celiyaa sidii hore ayay ku laabataa ilaahayna wuxuu ku yidhi labada mucjiso ayaad haysataa nabi baad tahay dhaqaaq nabiyullaahi muusa halkan markii uu marayo ilaahay wuxuu weydiistay
weydiistay in ilaahay uu u fududeeyo hawshan ayada. qaala rabbi shrah lii sadrii wayassir lii amrii wahlul cuqdatan min lisaanii yafqahu qawlii wajcal lii wasiiran min ahlii haaruun akhi. ilaahayow carabkayga waxa weeye ii fur oo hadalka ii fur si ay ii fahmaan reer tolkayga iyo dadka aad ii dirayso. fircoon baad ii diraysaaye iyo reer bani israa'iil si ay ii fahmaan. ilaahayow carabka ii fur oo hadalka ii fur. yacni markaad aftaan tahay oo hadalkaaga aad sheegan karto iyo markaad afgoriciil tahay oo hadalka uu ku dhibayo waxa waaye isku mid maaha. marka nabigu wuxuu leeyahay ilaahayow hadalka ii fur. waxaa kaloo weydiistay in walaalkii haaruun lagu kaalmeeyo wa afsaxu minii lisaanan oo ku sheegaya inuu ka aftaansan yahay oo nabi haaruun uu ka aftaansan yahay nabi muuse. sidaa daraaddeed buu leeyahay ilaahayow waxaan rabaa inaad asagana nabi haaruun inaad igu kaalmayso oo aad raaciso oo aad igu xoojiso. deedna ilaahay waa uu ka aqbalay wuxuu yidhi qad utiita su'laka yaa muusa. muusow su-aashaagii waa lagu siiyey waadna haysataa oo nabiyullaahi haaruun sida adiguba aad nabi u tahay ayaa asagana macaga aanu nabi ka dhignin. haddaba saaxiibayaal intaa wixii ka dambeeyey ilaahay wuxuu ku yidhi nabi muuse iyo haaruun u taga ninkii fircoon ahaa fariintana ka guta. idhaba ilaa fircawna inahu tagaa faquulaa lahu qawlan layinan lacalahu yatadakaru aw yakhsha. nabiyullaahi muuse waa u garanaya ninkii fircoon ahaa inuu yahay nin shaytaana oo jabaabirada ka mida oo diktaatoora oo dadkaba aan agtiisa waxa weeye qof ka hadli karaaba aanu jirin, ninka hor iman karayaana aanu jirin, ciddii ka hor timaadana in seeftu taqaano nabiyullaahi muuse wuu ogyahay. sidaa daraaddeed ayaa nabiyullaahi muuse markii ilaahay intaa ku yidhi fircoon u taga dacwadana ka guta ayuu baqay nabiyullaahi muuse. waxaana uu yidhi ilaahayow waxaan ka baqayaa ninkani inuu nagu xadgudbo. rabbanaa inanaa nakhaafu an yafruta calaynaa aw an yadqa. kadibna ilaahay baa wuxuu ku yidhi ha cabsanina aniga ayaa idila jiro waxa meesha ka dhacayana waan arkayaa waana maqlayaa. qaala laa takhaafa inanii macakumaa asmacu wa araa. nabiyullaahi muuse oo soo dhaqaaqay saaxiibayaal waxaan u yimiday wadankii masar markii ugu horreysay muddo 10 sano ah ayaa waxa uu la kulmay reerkiisii aabihii hooyadii walaashii asaga ka weyneed oo hadda qisadii hore soo daawatay aad ogeed waxa weeye inay qayb lixaad la kala ahayd in hooyadii ay dib ugu soo laabato oo caanaha hooyadii uu dib u nuugo nabiyullaahi muuse iyo sidoo kale walaalkii asaga ka weynaa haaruun. qoyskii muddo 10 sano kala maqnaa halka ayaa ay ku kulmeen nabi muuse nabiyullaahi haaruun buu gooni ula baxay waxaana uu sheegay fariinta ilaahay xaggiisa ka timiday in labadoodaba ay yihiin laba rusul mucjisaadkaana la siiyey ayaa uu sheegay. dabadeetna wuxuu isdiyaari ninkii fircoon ahaa shaydaankii magaalada haysta ayaanu aadaynaa. nabi haaruun iyo nabiyullaahi muuse waa ay soo dhaqaaqeen waxaana ay yimaadeen qasrigii fircoon albaabka ayaana soo istaageen. ninkii fircoon ahaana waxaa lagu yidhi muuse ayaa erida taagan ninkii 10 sano ka hor ninka dili jiray ee dhaqaaqi jiray iska cararay oo soo laabtay ayaa albaabkaaga taagan inuu kuu soo galo ayaana uu doonaya. fircoon waxa uu kulmiyey madaxweyntiisii isagoo bal rabo inuu ninkan arko wax uu la soo laabto. deedna waa loo idmay nabiyullaahi muuse iyo haaruun sida ayaana ku galeen qasrigii fircoon waxaana ay hor istaageen shaydaankii fircoon ahaa. dabadeetna halkan cala tuul nabiyullaahi muuse waxa uu bilaabay dacwadii. fircoon ayaana ula hadlay wuxuu yidhi fircoonow ilaahay xaggiis ayaan ka imiday waxaana ahay rasuul alle waxaana kuugu yeerayaa inaad ilaahay rumayso waxa aad sheeganaysana aad ka tanaasusho. ilaa fircoon wuxuu sheeganayay inuu yahay ilaaha sarraynta badan oo ilaah kaleba inuusan jirin aan asaga ahayn ayuu sheegan jiray. ana rabbukumul aclaa rabbigii sarraynta badnaa waa aniga reer masarow ilaah kalena ma jiro aan aniga ahayn maa lakum min ilaahin hayri ma garad. marka fircoon wuxuu sheegan jiray ninka asaga inuu yahay. fircoon marka nabiyullaahi muuse wuxuu ku yidhi ilaah ma tihid ilaahay baa isoo diray waxaan ahay rasuul. ninkii fircoon ahaa wuxuu dib u xusiistay abaalkii iyo barbaarintii iyo badbaadintii nabiyullaahi muuse uu badbaadiyey. markaasuu wuxuu ku yidhi alam nurabbika fiina waliidan walabista fiina min cumrika siniin. war muusow sowtaan ku soo barbaarin sow kumaanan soo barbaarin adoo sanduuq ku jira oo hooyada ay ku soo tuurtay miyaanan ku barbaarin oo waqti cumrigaaga ka mida soo halkan kumaadan qaadan oo si fiican soomaadan u barbaarin soo gacan kuguma lihin maanta waxaad sheeganaysaa maxay yihiin. intaa kadib soo adiga haddana nin naga dilay وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين فعلك حما سو اديق هذا سمي markaan waxa soo wanaaga ku sameeyay kadib soo adiga abal marin xunna siiyay oo nin naga dilay dadina wiilaa Muuse wuxuu yiri qaala facaltuha idan wa ana min ad-dallin arinta idan waan sameeyniyo fircoon aad sheegaysid laakiin xilliga asaga waan ku khaldana ilaahay baa dib daaf ka weydiisay ilaahina wuu dib daaf fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman waj'alani min al-mursalin laakiin kadib waan idinka carray anoo adinka ka baqay markaan idinka carray kadibna ilaahay mursaliinta ayuu iga mid dhigay ilaahayna xukun ayuu isiyay rasuulna waa iga dhigay fircoon oo ilaahay rumay waxa weeye waxaad sheeganayso ilaahnimadana iska daa ilaahay kaligiina rumay fircoon marka ayuu inta soo jeestay wuxuu yiri wama rabbul alamin wa rabbigaad sheegaysaa muxuu yahay ilaa asa rabbi isku haysto ninkanina rabbi kale ayaa uu sheegaya nabi muuse wuxuu yiri rabbus samawati wal ardi wama baynahuma in kuntum muqinin rabbiga aan kuugu yeeray fircoon waa cirkan aad arkayso korkaaga ah iyo dhulkan aad ku taagan tahay ilaahi abuuray oo rabbiga uu ahay hadad niyo wax qaadanayso fircoon markaas intuu ku jeestay dadkii golahiisa fadhiyay intuu saa ugu jeestay qosol la dhacay wuxuu yiri ala tastami'un wadinkan ma maqlaysan wuxuu sheegay maanta wuxuu wadaba wuxuu keenay fircoon ilaah aan ahayn baaba jira ayaa maanta la soo istaagay runka wuxuu sheegay maqlaysan nabiyullaahi muuse oo soo noqday wuxuu yiri rabbul mashriq wal maghrib wama baynahuma in kuntum taqilun halka qorraxdu ka soo baxdo iyo halka u dhacdo waa ilaah rabbi u ah waana dacwadii uu kala horiyay nabiyullaahi ibraahim ninkii shaydaanka ahaa namruud oo ku yiri ilaahay qorraxdu wax ka soo bixiya bari galbeedna uu ridahay adoo dad rus sheegayso namruudow
aduu halkay u dhacda ka soo saar oo galbeedka qoraxda ka soo saar halkay ka soo baxdan hadda urid oo mashriqa halka ah maghrib ka dhig deedna ilaahay waa ka yiri fabuhita alladhi kafar namruud halkii baa ku istaagay sidoo kale nabiyullaahi muuse wuxuu leeyahay ilaahay halka qoraxdu ka soo baxday halkay u dhacdo ilaahay u habaan kala hadlaya markaasuu fircoon wuxuu yiri inna rasuulakum alladhi ursila ilaykum lamajnuun war rasuulka la idin soo diray nimayow waa nin waalan waaba isaga maadisanaya xiwaar dheer oo dhex maray nabiyullaahi muuse iyo fircoon kadib fircoon wuxuu bilaabay sidii lagu yaqaanaba nimanka diktatorada ee kaliya taliyaasha inuu maartay handado nabiyullaahi muuse oo ku yiraahdo hadaad ilaah aan aniga ahayn samaysato la jacalannaka min almasjuuniin xabsigan kugu hilmaamaya xabsigaad ku oraysa baash liintaad ku cabaysa maal dhig jira maalmahan hadaad wax kale la timaado aniga aan ahayn waxa weeye muuse xabsigaad ku oraysa markaasuu nabiyullaahi muuse waxa ku yiri markii ay baashu goodi tagtay oo arkay ayuu yiri fircoon ka waran hadaan mucjisooyin kuula imaado markaasuu ku yiri faati bihi in kunta min as-saadiqiin wallahi ma waniyo waxaad sheegaysaa dad ruu sheegayso markaasa nabiyullaahi muuse wuxuu sii daayay ushii markii sidan loo sii daayaba waaba abayso aan caadi ahayn oo indhaha aan loo dhamayn karin meesha dhan baa lagu kala cararay qasrigii fircoon baa lagu kala orday raggii golaha fadhiyay madaxweynta iyo ciidankii waa la kala yaacay fircoon argagax baa ku dhacay warbaalkii qabta in la isku hareereeyo fircoon laga ilaaliyo ayay tag aayad buu nabiyullaahi muuse madaxa ka soo qabtay waa soo istaajiyay waaba ushiisiiba mar labaad gacantu jeebka geliyay waa soo bixiyay gacantii waaba caddahay waatan oo ifaysaaba u dansaday haddana fircoon waxaa ka soo haray iyo dadka la fadhiyey indhataag baa ka soo haray aad bay ula yaabeen war waxaan maxay yihiin waxaan garanaynaba ma ninkii fircoona markaasuu asoo aayaadka mucjisaadka arkay oo garanaya ninkan muuse inuu waqti dheer agtiisa joogay waxaana uusan aqoonin na uusan samaysan karin ayaa haddana uu madax taagay markaasuu yiri sixir baad soo baratay waxaanaad la timid si aad waddanka iyaga nooga saarto qaala aji'tanaa litukhrijana min ardina bisixrika yaa muuse muuse waxaad u timid inaad dhulka iyaga naga saarto oo sixirkaagan aad waddanka nooga saartaad u timid markaasuu golihiisa intuu saa bidixi midig u fiirshay warwanimayow tala keena ninkan isaga ah maxaanu ka yeelnaa waddanka u rabaa inuu naga saaro sixirkiisa maxaynu yeelnaa markaasay waxay ku jawaabeen arjih wa akhaahu wabcad fi lmadaa'ini xaashiriin ninkan isagii walaalkiiba arrintooda dib u dhig kadibna wax alla waxa suxaro iyo shaydaan aad leedahay oo kuu jooga waddanka oo dhanba u fariindir ha laysku yimaado sixirkiisa sixir ka weyn hala keeno sixirkiisana halkaa ha lagu burriyo deedna halkaas ayaa sheekadiisuba ku dhammaanaysa fircoon arrintii aad buu ula dhacay madaxuuna u ruuxay wuxuu yidhi ballan noo yeel waxaan ballan kuu qaadaynaa inaan suxaro kale kuu keesanno sixirkaagana aan burrino markaasuu nabiyullaahi muuse wuxuu ku yidhi mawcidukum yowmu ziinati wa an yuxshara annaasu duxa ballankiinu waa maalinta ciidda dadkana in dhammaantood amin barqina laysku wada keeno maalintaas ayaana noo ballana maalinta ayada ahayd ayaa la gaaray haddaba saaxiibayaal sheekadan nabiyullaahi muuse iyo fircoon waa sheekooyinka qur-aanka markaad akhrinayso aad ugu macaansanayso halkan ayaa waxaa ka bilaabanayo sheeko kale oo aan caadi ahayn halkan ayaa waxaa isugu iman doona suxaro laga keenay waddankii masar qaybihiisii kala duwanaa oo dhan gobolladii oo dhan laysugu keenay bartii nabiyullaahi muuse iyo fircoon ay joogeen halkan ayaa waxaa ka dhici doona wax aan caadi ahayn oo mucjiso ah hase yeeshee saaxiibayaal muuqaalka xiga ayaan ka dhigaynaa haddaad halkan nala soo gaartay aad baad u mahadsan tahay janalka taageer sabskaraab ku qabo shargare saaxiibka la wadaag aad baad u mahadsan tahay daawashada muuqaalka daawatay la soco muuqaalka xiga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu